بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الأحبة إن شاء الله وحسكو ديدونا درس كوبنا قصة سيسن من مقاصد الدنيوية للعبادة أو من منافعها في الدنيا عباداتك ربي نفري يوين أركان الإسلام كو نحن قلنا الأصل في العبادات هي التعبد أصل كعبادته أين الله سبحانه وتعالى لسود الدقاء عبادة من أصل كدوحي هي وشكر لله سبحانه وتعالى وإلهي ووحو نمعك سيي يونيفرس كان دان كون كان دان أي نقال الله ينوع أبوه وحيد هذا القلادة ساينسي هندا قار كمدي وتايلر ميد فورمان بيد هذا مركي سفين يعني سيدا وسا ميسين هاي يوح كستوي يالا إنه إننا منفع إنه كتيرو أو سيستم كوية هاي وحيا هدي لقى بدل بيلين ومضرة نبو بنادم كوية ساسي درادة دو حيلين كون كوحو سميسين سيدي مرة لغو طلي دور ولا مركا تكتو dad mara caadi ibsato waxa laga yaabaa hadday halkan ka leekatana gacanta kaaga dheeraata ama meel laakiin dawaarka markaa tagtee lagu fuuriyo lagu qiyaaso waxay noqonaysaa wax lagu tolay dunida universe say u samaysantahay bay leeyahay waa tailor made for men waa dawaar walaad moodaa inuu bini aadamka ku tolay bay leeyahay ilaahay baynu ugu mahadnaqaynaa subxaanahu wa tacaala waxaynu noqonaa cibaadaadku asliyan inay yihiin waa talab limaqfirati illaahi subxaanahu wa tacaala rabbiyo aan dembi dhaaf iyo naxariis weydiisanayno waxaynu naqaanaa cibaadaadku dhammaantood inay yihiin muujinayno inaynu ilaahay u baahanay subxaanahu wa tacaala iyo weynaynayno xusayno aqim الصلاة لذكري ألا بذكر الله تطمئن القلوب ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا يعني markaad quraanka eegto in badan ilaahay dhikrigi daraadeed baa loo sameeyaa laakiin waxaan rabaa inaan nidhaahno cibaadaadku asliyan waxaan leenahay jannana waynu ku raadcaynaynaa cadaabna waa kaga baxsanaynaa laakiin hal lilcibaadati min faa'ida fi dunya cibaadaadkan aynu samaynayno manfac dunawiya ma leeyihin ma aakhiro uun inaynu wax ku helna baynoo cibaadaysanaynaa mise adduunkan aynu joogno cibaadaadku manfac dunawiya bay ku leeyihiin noloshan aynu noolay hadda ee adduunka aynu joogno wax athara ma ku leeyihin wax raada ma ku leeyihin in shaa allahu tacaala waxaan tilmaami doonaa markaa waxyaabaha ku soo arooray ilaahay kitaabkiisa ka warramaya manaaficda ama maqaasida dunyawiga ah ee cibaadaadku ay leeyihin wax ka mid a haddaynu salaad tilmaamno matalan salaadu waa rukunka labaad ee arkaanulislaam waa cibaadaadka qadiimka ee ambiyadoo dhan la faray ka mid a siiba arkaanulislaamku saasuu u badan yahay waa cibaadaad qadiim ah oo inta badan qur-aanku uu kaga warramaya ambiyadii hore inay sameeyeen salaadu manaafic bay leedahay baa ilaahay diinta ku tilmaamaya haddii ay noqoto salaaddii sax ahayd hadday noqoto salaaddii nebi maxamed la faray calayhi salaatu wasalaam waxay leedahay manaafic matala ilahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya ina asalaata tanhaa can alfaxshaa'i waalmunkar salaaddu waxay qofka bini aadamkaa ka reebtaa alfaxshaa waxa xun wixii fuxshiya xumaan ah iyo munkar wixii sharci iyo caqliba diidaan waxa foosha xun dhammaanteed ayay qur-aanku uu tilmaamayana ka rabto taa macnaheed waxa weeyaan salaaddu waxay tahdiibisaa oo tathiirisaa akhlaaqda qofka muslimka ah dhaqanka qofka muslimka ah sida ogeed baa ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya maalan ina alinsaana khuliqa haluuca idaa masahu sharu jazuuca waidaa masahu alkhayru manuuca
ilahay wuxuu leeyay bini aadamka waxaa la abuuray isagoo haluuca. haluucaasi waxay culimmadu ku fasiraan labada aayadoodoo dambe waxay sheegayaan. waxaa la yidhahdaa bini aadamka dhaqankiisa waxaa ka mid ah idaa masahu lkhayru manuuc, hadduu wanaag helo waa mid bakhayl oo xejista. waayo min fitratihi waxa lagu itixaamay waxaa ka mid a maalan xoolaha jacaylkooda oo qur-aanku mar kasta uu xoola ka warramayo inta badan tuxibuuna almaala xuban jama wainahu lixubi اlkhayri lashadiid yuطcimuuna طacaama calaa xubihi miskiina wayatiima waasiira. yacni qur-aanku marka warramayo ku bixiy iyo ku aan bixinba waxaa la tilmaamaya inay min fitrada bini aadamka mata inuu xoolo jecel yahay. saa daraaddeed ilahay wuxuu leey khayrka markuu helo waa manuuc fi asli, waa mid aan bixinin. waxaa kaloo lagu sifeeyey waidaa masahu sharu, dhibtu hadday haleeshana waa jazuuc, waa mid argagax badnaa. yacni naftiisu confidence deganaanshiya ma leh. hadday dhibtu qabsatana waa calaacal iyo qaylo, waxa ka soo hadha kan baa igu dhacay isaan baa dhacay, waa calaacal. hadduu wax helana waa ku dhagaabaa ilaahay leeyo waxba kama soo baxaya. laakiin dhaqanka xun yaan lahayn baa ilaahay ku tilmaamaya. waxaa ilaahay leeyahy ila almusalliin, kuwa tukada dhaqankaa male. kuwii tukadaa la sifeeyo waxaa la yidhi waa kuwa salaadooda daa'ima. sifaad kale inta lagu soo sheegaa waxa lagu gebagabeeyey waa kuwa salaadooda xifdiya. kuwa salaadooda tukada ee waktigeeda ilaaliya ee arkaanteeda iyo waxay shuruud iyo waajibaad ay leedahay la yimaada, waxaa lagu tilmaamayaa inay ka badbaadaan dhaqan xumadaasi. waxaa qur-aanku uu tilmaamaya inay ka badbaadeen dhaqanka ah inuu gacan adayga yeesho. wuxuu qur-aanku tilmaamaya inuu ka badbaado dhaqanka ah inuu mid ergagax badan u noqdo. waxaa la yidhahaa saxaabada rag ka mid ah waxay tilmaameen nin baa la sifeeyey, dabeetana waxaa la yidhaha ninkaasi habeenkiina wuu tukadaa, maalintiina waxbuu yaro qaadqaadaa. habeenkiina nin salaad tukanayaa lagu sifeeyey, maalintiina wax yaro qaada. nabigaa maqlay waa caynkaa leh calayhi salaatu wasalaam. markaasu wuxuu ku yidhi tamnachu salaatu, waxaa ka mancin doonta buu nebigu yihi salaadiisa. hadday dhabtay ninkani salaatulail inuu kaco habeen tukada uu yahay oo salaadaasi mid daa'imaya uu yahay, dhaqanka iyadaa ka bedelaysa buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam. yacni tuuganimo iyo salaadi meel ma wada galaan buu nebigu tilmaamaya. qofku haddii uu salaadiisu sax noqoto oo ay hagaagto wuu ka badbaadayaa buu nebigu ku tilmaamaya caynkaasi. walidaalika waxaynu leenahay waa cibaada aynu ilaahay ugu dhowaanayno, dembi iskaga maydhano, janno ku raadinayno, cadaab kaga baxsanayno. laakiin adduunkan aynu joogno fawaa'id bay ku leedahay. waxaa ka mid ah maalan qur-aanku wuxuu tilmaamayaa culayska iyo mashaakilka adduun waxyaabaha loo adeegsaday zaadka laga dhigto ee ugu weyn ee lagaga hortaga salaad baa ka mid ah. walidaalika nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu faray inuu dunidan ka hor yimaado. risaalaa loo dhiibay keligii, askari lama socoto, ciidan ma wato, dhaqaale ma wato. adiga haddii lagu yidhahdo dunida ka hortag projectaa lagu siiyo waa adiga iyo adduunka. de innagu markiiba waxaynu odhan lahayn project balaankaasi wuxuu u baahan yahay dhaqaale intee leeg, ciidan intee leeg, caqli intee leeg. project balaan baad samayn lahayd resourceska aad u baahan tahay si aad adduunka uga hortagto ama aad adduunka wax uga bedasho ama adduunku wuxuu rumaysan yahay inaad gedida. waxaad odhan lahayd wuxuu u baahan yahay resource intaa leeg, intaasoo dhaqaalaa, intaasoo dada, intaasoo kana. laakiin ilaahay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxaa la yidhi rasuul baad u tahay dadka, diin baana lagu dhiibaya. weliba waa loo sheego waxa la yidhi qowl thaqiila lagu dhiibaya, war culus. laakiin waa maxay zaadku wataa? ilahay wuxuu ku yidhi yaa ayuha almuzammilu qum illeyla ilaa qaliila nisfahu aw inqus minhu qaliila aw zid calayhi warattil ilqur'aana tartiila inaa sanulqi calayka qawla thaqiila ina naashi'ata alleyli hiya ashaddu waط'an wa aqwamu qiila. ilahay wuxuu ku leeyahay kan isduuduubayow, yaa ayuha almuzammilu ka isduuduubayow baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala,
habeenkii kac intiisa badan habeenkii ama nus kac ama intiisa badan kac ama nuskaa wax yar ka yaree salaad isu taag baa la leeyahay markaasaa waxaa loo sheegay qowl haqiilana in loo dhiibi doono war culus oo adduunka oo dhan risaalo la rabo in lagu saxo ayaa lagu dhiibayaa baa la yidhi markaasaa waxaa loo sheegay ina naashi'ata alleyli hiya ashaddu wad'an wa aqwamu qiila suuraddu ama aayaadkani maxay tilmaamayaan waxay tilmaamayaan salaadu inay tahay qofka muslimka ah zaadka ugu badan ee uu u baahan yahay inuu qaato siduu mashaakilka adduunyo dhan u waajaho sida awgeed baa ilaahay qur-aanka muxuuna leeyahy yaa ayuha aladiina aamanuu istaciinuu biالصabri والصلاة إن الله مع الصابرين واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة لا labada aayadoodba fi suurat albaqara ku jiraan ilahay wuxuu leey kuwa iimaanka laga helayo istaciinuu biالصabri والصلاة sabr iyo salaad sabirka lagu fasiro sidii la doono u fasir waxaynu leenahay halkan inagu mawduc istidlaalkeenu waxa weeyaan sabr iyo salaad adeegsadaa la yidhi isticaana baa lagu tilmaamay waxaad adeegsataan waxaad kaalmaysataan oo nolosha u kaalmaysataan asabr wasalaa sabr iyo salaad walidalik ayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam markay ku adkaatay acmaashu qabanaya oo 3 sannadood wado ayaa haddana waxaa la faray fasdac bima tu'mar wax sheegsheega hoose ka baxo kor wuxuu sheeg baa layidhi awal dadka intii caqli uu bidaya iyo intii uu warka silaya waa ku aqbalaysa iyo intaas uu la hadlayay marka kan waxaa la yidhi fasdac bima tu'mar wa acrid can ilmushrikiin kor u dhawaaq oo waxaa lagu faray dadka gaadhsii ayaa nabiga la faray calayhi salaatu wasalaam waxaa loo sheegay kuwa mustahzi'iinta iyo waxaa annagaa kaaga filan waxaa loo sheegay inay ilaahay dafirsanaan doonaan haddana ilahay wuxuu leey walaqad naclamu waa ognahay baa ilaahay leeyay subxaana wa tacaala annaka yadiiqu sadruka bima yaquuluun inay laabta ku cidhiidhiyoomi doonto waxay ku hadlayaan ilaahay waxay ka sheegayaan nebigiisa waxay ka sheegayaan yani rabu samaawaati walardi bay ka hor yimaadeen nebi maxamed oo saadiqu lamiina ayay leeyihiin waa saaxir iyo waa kaadib iyo waa falalow iyo waa kan iyo waxa ay ku sheegayaan dacaayaadka la gaadhsiiyey waxay gaadhay dadka ma ka soo gelaya inay dhagaa soo furaystaan iyagoo isla ninkan waalana la sheegaya waxay gaadhay xad aad sawiri karto intaan nebiga u yimaado inuu yidhaahdo maxamedow waxaan maqlay in waxoogaa dhibi ku haysato in yani wax kugu yaraa wax kaa yara si yihiin aniguna dadka xanuunsanaya waxbaan ku tufaa ma kula tahay buu yidhi inaan wax kugu tufo saxaabigii damaama la odhan jiray hadiiska saxiix muslim ku yaala waa yani warkii dadku inuu waalayaa ayaa la gaadhsiiyey dadka nebigu calayhi salaatu wasalaam wax u dhiban yihiin dabeetana intuu ninkaasi yimi buu wuxuu leeyahay waxa ay soo gaadhay inuun dee wax kugu yara siiyiin inaad normal ahayn aniguna dadka wax tufa baan oo dadka wax ku akriya ee aan wax kugu akriya buu nebiga ku leeyahay calayhi salaatu wasalaam markaasuu nebigu xamdaladan aynu naqaano bilaabay ina alxamda lilahi naxmadu wanastaciinu markaasuu yidhi bal ku celi markaasuu haddana ku celiyay nebigu calayhi salaatu acidhaa calaya buu markaasuu ku celiyay dee nin waalane hadduu intuu war ku sheegaa tiraa ku celi meel kale ka baxaya sooma haddana nin waalane ma qaybsaneen midda kale nin waalane dee hadal xikmad le intuu sheego haddana dib ugu soo celin maayo hadalkii xikmadda laha markaas kadib buu rumeeyey nebiga calayhi salatu waxaan uga dan leeyahay un ilaahay baa wuxuu leeyay walaqad naclamu annaka yadiiqu sadruka bima yaquuluun waa ognahay baa ilaahay leeyay subxaana wa tacaala in laabtaadu ay cidhiidhiyoomi doonto waxa ay dadkan kugula hadlayaan iyo waxa lagaala hor imanayo adoo saadiq alamiina adoo xaq u sheegaya ka waran haddii adeerkaa lagu daba dhigo meeshaad istaagtaba hadduu intu adeerkaa iskaa daba taago yidhaha waa beerahala yarkaan annaga adeer u aho waxba sheegi maayo nabi maxamed adeerkii baa la daba dhigay abulahab oo halkuu istaagaba intuu isdhinac taagale waxba wixiisa kama jiraan ilaahay markaa wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam nebiga waxa uu rabbi ku leeyay waa ognay in laabtu ku cidhiidhiyoomi doonto waxay kugula hadlayaan
maxay samee ilaahay wuxuu ku yidhi fasabbix bixamdi rabbika tasbiixsa baa la yidhi iyo maxay kala raacay wakun inta sujuudana ka mid noqo baa ilaahay waxay culammadu leeyihiin dawaa ayaa la siinayaa culayskan iyo dhibtan iyo mashaakilkan haystaa laba wax oo kaga baxayaa la baray midi waa tasbiix subxaana allahi wabixamdihi tasbiixdu waa dikriyada ugu waaweyn ee ilaahay lagu xuso subxaana allahi wabixamdih waa laba kelmadood oo midna tansiih tahay ilaahay aad xumahoo dhan ka dheeraynayso midna ay ammaan tahay ilaahay afcaashiisa oo dhan wanaagsan aad ku ammaanayso waxaad tasbiixsana baa la yidhi inta sujuudsanna ku biir ka mid ahow cidhiidhi laabeed baa la sheegay laakiin dawada loo qoray ee la leeyahay cidhiidhigan iyo mashaakilka ku haystaad kaga baxaysaa waxa weeyaan waa dikriga ilaahay subxaana wa tacaala ee tasbiixdaasi iyo taxmiidda iyo salaadaas ay ka mid tahay sida awgeed ayaa xadiidka imaamu axmed warinayay iyo abu daawuud ba wariyeen waa ka xudayfa tilmaamayo idaa xasabahu amrun fazaca ila asalaa nabigu calayhi salaatu wasalaam haddii dhibi qabsato salaada xaggeedu u carari jiray xadiidkani wuxuu ka mid yahay axaadiista sheekh ilalbani uu isbaraanbariyey markii horena daciifiyey laakiin markii dambe xasan buu ku tilmaamaya idaa xasabahu amrun haddii arrin warwargeliyo oo dhibi qabsato nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu u carari jiray xagga salaada buu xadiidku tilmaamaya ama xadiidka kale abu daawud warinaya saxiixa nabigu calayhi salaatu wasalaam marka mashaakilku qabsado arixnaa biha yaa bilaal buu lahaa arixnaa biha noogu raaxee waxa uu ku raaxaysanaya nabigu calayhi salaatu wasalaam waa salaad idan salaaddu waxay u ahayd nebiga zaadkiisa dhabka ah gaadhigu markuu kaa madho maxaad ku samaysaa shidaallaha kugu dhow baad dee shaxan kasii qaadataa soo maha aad kasii buuxsataa si aad safarka usii wadi karto salaadu waa qofku meesha uu nolosha ku waajaho waa meesha uu shidaalka kaga shubto si uu nolosha baaqigeeda ugu waajaho maalin kasta uu ilaahay subxaana wa tacaala uu 5 jeer is hortaago idan waxaan leenahay salaadu hadday tahay resistanceka aad u leedahay mashaakilka inaad xambaarto awoodda aad iskaga caabinayso hadday tahay tahdiibta akhlaaqiga ah ee xumaha iyo waxaasoo dhan aad ka dheeraato waxaan leenahay waa intaynan akhirays la gaadhin waa inay muujisaa macnaha dunawiga ay leedahay qiimaha adduunka ay ku leedahay iyo dhadhanka ay samaynayso waa inay adduunka dhexdiisa inoogu muujisaa mithaal kale maalan zako waa rukniga labaad saddexaad islaamiga ah ilaahay wuxuu faray in zaka dadka laga qaado nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiidkii mucaad ibnu jabal waxaa la yidhi bax oo yaman tag yaman waa ahlu kitaab baa la yidhi meeshii loo diray qowm ahlu kitaab aad u tegi doontaa waxa koowaad aad ugu yeedha waa tawxiidka ilaahay ha noqdo waxa labaad aad u sheegtaa waa maalintii in 5 salaadood lagu leeyahay ha noqdo waxa saddexaad aad u sheegtaa baa la yidhi marka la yidhaha kaa hadday falaan kaa hadday aqbalaan tan u sheeg baa la yidhi zaka baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam laga qaadaya min aghniyaa'ihim oo la siinayo maxay faqradooda la siinayo waxay culammadu yidhahdaa zakada macnaha ugu weyne koowaade ku jira intaynan ka warramin ilaahay iyo mahadnaqiisa iyo nimcada alla ku siiyey inaad wax ka bixiso waxa weeyaan bay yidhahdeen atakaaful alijtimaaciy bulshadu inay isku xidhnaato oo zakadu hadda dadka muslimiinta siday u bixiyeen waxaad moodaa si macnihii ka qaaday inay tahay oo caanteyn loo bixiyo iyo sumuriyo iyo laakiin zakadu maaha zakadu waa system of life waa system wax ka bedela mithaal basiita waxay yidhahdaan waxay isdhinac dhigeen dowladda maraykan cashuurtay qaado iyo zakada isdhinac dhigeen systemka cashuuraha loo qaadaa inta badan waa income-kaa laga qaadaa socanka maaha income-ka laga qaadaya waa maxay waa sanadkan waxay kusoo galay ee waxaad haysata maaha maalan ninka waddanka degan ee bilyaneerka 10 bilyan haysta 10 bilyan waxaa laga qaadi maaya hadda waxaa laga qaadayaa sanadkan 2 milyan baa soo galay 2 milyan baa laga qaadaya percentka 2 milyan sanadka dambe waxba laga qaadi maayo
income-ka sanadka ku soo galay baa laga qaadaa maxay ayaa cashuurta laga qaadaa zakada se maxaa laga qaadaa waxaad haysatid oo dhan baa laga qaadaa waxay dhahdaan cashuurta maraykan bixiyo oo dhami haddii systemka islaamiga ah loo xisaabiyo waxay u dhigantaa bay dhaheen 3% dad laga qaaday shirkaduna waa imisa waa 2.5%. يعني cashuurta maraykan qaado oo dhan iyo zakadu way isku dhadhow yihiin hadduu maraykan cashuurta iska daayo uu zaka qaado almost way dhadhaweynaysaa maxay in wixii ay dowladdu qaadi jirtay cashuurta zakadu marka waa system loogu talagalay tawaasi mujtamacu inuu walaaloobo oo dadka haniyada wax haysta iyo dadka fuqarada ay midoobaan iyadoo aan qofka qasab wax lagaga qaadaynin ee can tawcin uu bixinayo cashuurtu yani kuwan liberal democracy-ga rumaysani diidan cashuuraha in la qaaday hoos u sii dhiga waxay dhahaan waa legal theft bay yidhahdaan waa tuugadii sharciga ahayd bay yidhahdaan jeebkaaga dowladdu baadhanaysa waa tuuga bay yidhahdeen laakiin waa tuuga sharciya bay yidhahdaan legal theft bay ku tilmaamaan laakiin zakadu maaha legal theft zakadu waa wuxuu qofka muslimka u bixiya maxay can tawcin isagoo ilaahay ugu dhowaanaya subxaana wa tacaala waa wax loogu talagalay inay raad bulsheed yeelato tusaale basiita nin dhakhtaroo soomaaliyeed soomaaliya jooga ayaa wuxuu tijaabiyey inuu zakada reerkooda faqriga kaga saaro reerkoodii buu tegey dabeetana wuu la shiray odayadoodii buu isugu yeedhay wuxuu ihi waxaan rabaa inaan reerkoo dhan zakadiisa ururino reerka wixii faqiirana iisoo qora wixii reerka ku jira faqiir iyo miskiin reer ka mid a soo qora zakada reerkoo dhanna aan ururino odayadii waa ka aqbaleen reerkii markii hore ma wada aqbalin ilaa 400 oo qoys meelahaasa aqbalay dadku dhudhow intii baa laga qaaday odayadii walcaamiliina calayha buu ka dhigo thumunkoodu siiyey 8 qaybood ee zakada loo bixin jiray qaybtoodu siiyey dadkii siday u kala faqaraysanaayeen buu u kala horbixiyey wuxuu ku talagalaa sanadkan ciduu zakada siiya sanadka dambe inay zaka bixin karto inuu ka saaro faqriga way dad xoolahoodu saka goysa noqdaan waqti yar markuu waday reerkoodoo dhan wuxuu noqday dad zaka wada bixiyaan zaka qaadanin ma tajribo haddaan dee idinka warramo taariikhdii hore muslimka iyo waxaa odhan doontaan waa baahiyaa dadkan caynkan aniga ka macan waa casrigan waa hadda iyo soomaaliya waa hadda iyo soomaaliya waa gobolka xeergaabo nin wadaadoo dhakhtari reerkoodu zakada ka ururiyo faqriga ka saar ilaa xad ay gaadho in reerkoodu markuu faqiir iska dhex waayo reeraha kale ay zakada markaas siiyaan yani waa system loogu talagalay inay bulshadu kaga baxdo maxay faqriga in lagaga saaro waa system loogu talagalay takaaful ijtimaaciya social welfare ma jiro laakiin waxaa jira qofkan in hani laga dhigo in la baahi tiro oo baahi beelo inuu hadhow isagu noqon karo qof wax bixiya aanu noqonin maxay qof wax qaata aanu noqonin aanu noqon waxa la siinaya wuxuu maanta cuni lahaa ama bishan cuni lahaaye wuxuu faqri kaga bixi lahaa in loo dhiibo idan waxay leenahay zakadu waa shay loogu talagalay inaan bulshada faqriga lagaga saaro oo takaaful ijtimaaciya inay bulshadu yeelato ayaa loogu talagalay soonku kow waa cibaado dee ajarkeeda aynu naqaano axaadiista ku soo aroortay iyo in ilaahay ku tilmaamay say culammadu u sharxaan qaacidadan loo yaqaano alxasanatu bicashri amhaaliha ila 700 inay kaba baxsantay iyadu oo asawmu lii wa ana ajzi bihi soonka anaa iska leh waana dadka ka abaal marinaya iyadu waxay dhahdeen waa fawqa hadihi alqaanuun qaanuunka caadiga ee xasanaadku waxa weeyaan in lagu toban laabo ilaa iyo 700 ضعف ayaa qaanuunka xasanaadka caadiga ilaahay inoo sheegay qaanuunka sayaadu waa sayaadu bimithliha faqat min raxmati sayaada sayaadun baa la qoraa xabad ama xasanada 10 jibaar baa ugu yar xasanada 10 jibaar ayaa ugu yar ilaa 700 way gaadhaa markay joogto soonka waxaa hadiisu tilmaamaysaa in iyadu qaacidada ka baxsantay waana ajzi bihi ay tahay soonku faa'iido dunawiya ma leeyahay ha
faa'iidadu nabigu leeyo asliyan sidii cibaadaadka kaleba ay u tilmaamayeen qofka akhlaaqiyaadkiisa iyo dhaqankiisa inay wax ka bedelaan waa inay wax ka bedeshaan waatuu nabigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam qofka haddii lagula dagaalamo inaad tidhaahda maxay inni saa'im la tilmaamayay laa yarfath walaa yajhal inaanu afxumoonin dagaalamin caytamin dadka xumaynin bale la tilmaamaya dadka si aad u nabadgelinaysa uu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam qofka aan ka tegin qawla الzuri wاlcamala bihi inuu dembe aan xaajo loo qabin baha soobkiisa qadiyadda akhlaaqiga markaynu ka nimaadno maanta dee idinku reer sudan baa tihiin reer sudanna dee idinkaa u owleysan inaa masaa'ilkan oo kale ogaataan 2016 nobel prize-kii medicinka maxaa lagu qaatay 2016 October 3 nobel prize-kii medicinka muxuu ahaa qadiyad saan ku saabsan autophagy wixii la odhan jiray waa odaygii jabaniiska ahaa ee maxaa la yidhahdaa yoshinori ohusumi waa oday jabaniis ah nobel prize-kii 2016 isagaa qaatay qadiyadda caafimaadka ay ma ku saabsiisan ayaa lagu siiyey isagoo cell biologist ayuu ku qaatay waxaa ku qaatay waxay u yaqaaneen hadda autophagy waa aliltihaam الذاتي iscunka jidhkaa la yidhahdaa waa kelmada asalkeeda laga keenay greek autophagy waa aliltihaam الذاتي iscunka jidhka waa system unuga hoose jidhka uu leeyahay oo ah repairing iyo dilkaba ku saabsiisan yani waxay dhahdaan unugyada jidhku system bay leeyihiin ah haddii unugu inputkiisa iyo outputkiisu ay kala bataan yani kharashka ku baxaya iyo faa'iidadu leeyahay hadduu kala bato inuu jidhku ka takhaluso waayo waa culays unugyada daciifka ee noocaasi unugyada inputka la siinaya ay ka bataan maxay waxtarkooda iyo waxqabadkooda in la dilo marka la dilana in spare part laga dhigo oo dib uu jidhku u isticmaalo mar labaad waxay idhaahdeen in unuga la repair gareeyo haddii catal uu ka jiro qaybihiisa qayb ka mida unugu in qaybtaasi la tactiiliyo laga tuuro meesha oo dabeetana la repair gareeyo si kale mana selka iyo wixiisa dadku ma wada yaqaanin kaa taqaaniin aan tusaale usoo qaadana gaadhigu hadduu kugu gaboobo maxaad samaysaa mar walba lacagtaad galaysa ay sii badato waa la tuuraa soo maaha xad markuu gaadho aad ka quusatee repairingkiisu uu ka bato maxay faa'iidadiisa waxaad tidhahdaa gaadhigu faa'iido male waa la tuuraa haddii aad ka faa'iideyn karta maxaa la sameeyaa markaa soomaaliya oo kale markuu joogo waa la furfuraayo bir libaax buu noqdaa yani waxaa laga dhigaa spare part inaad u iibiso uun taayirada mid ka iibisid oo qolofta sare mid ka wixii aad iibin karto inaad iibiso haddii se gaadhiga qayb ka mida ay cadilanta maxaa la sameeyaa baterigaa kaa fadhiistay intaad muddo ka maqnayd waxaad u baahantuun gaadhiga ma inaad tuurtaaba mise in baterigun laga tuuro oo bateri cusub laga xidho systemkani labadaa shaquu qabtaa systemkani wuxuu qabtaa bay leeyihiin jidhka wixii uu kharashkiisu tiro batay ama aan faa'iidada ahlayn unugyada gabooba ee jidhka uu ka takhalusaa unugyada catal ku dhacana dib buu repair gareeya systemka maxaa yaabaha ugu fiican ee siiya feejignida ama kiciya maxaa ka mid a soom bay yidhaahdeen marka waxay leeyihiin qofku hadduu rabo jidhkiisa inuu si fiican u repair gareeyo soom ah bay yidhahdeen 12 ilaa 16 saacadood inta u dhaxaysa weliba bay yidhaahdeen soon ah toddobaadkii 2 maalmood inaad soonto waxaad moodaa inuu xadiiskii nabiga akhrinayo yani soonka caadiga waa 12 ilaa 16 saacadood inta u dhaxaysa soonka caadiga ah saacada ma Soomaaliya oo kale afarta la soomi jiray ilaa 6 meelaha waa 14 saacadood 12 saacadood ilaa 16 saacadood inta u dhaxaysa inaad soomanaato bay yidhaahdaan 8 saacadood kalena inaad wax cunayso systemkaasi wuxuu tanbiihinayaa bay leeyihiin starvationka yare gaajaysiinta yari waxay jidhkaaga u sheegaysaa inay systemkiisaasi kiciso oo jidhka wixii gaboobay xataa waxay ku tijaabiyeen ma la dhalinyarayn karaa bay yidhaahdaan qofka
tijaabay dad geliyeen dabeetana waxay leeyihin tajaaciiddii baa ka yaraatay duuduubkan qofku markuu gaboobo jirka uu duuduumayo haddaad rabta bay leeyihin jirkaagu inuu dhallinyaro noqdo soonka badsay leeyihin waa dhallinyaraad ahaanaysaa tajaaciiddaa kugu yaraanaysaa waxay tilmaamayaan hadda xad uu dee nobel prize lagu bixiyey wixii ka dambeeyeyna dee waad iska sii garan kartaa un buxuusta iminka laga qoray waa buxuus غayru caadiya xataa axad ulculamaa ba wuxuu tilmaamayay أحد الأطباء المسلمين وكتاب معجزة الصوم قري wuxuu yidhi waxaan is idhi kitaabkii dib u cusboonaysi waa hore u qoray deetana waxaan is idhi buu yidhi bal wixii buxuusta cusub soo eeg waan eegay buu yidhi musanad mise 3 sannadood u dambeeyey buu yidhi sagaal boqol oo research ayaa jaamacadka caalamiga sameeyeen buu leeyahay ku saabsan soon within 3 months researcheska certifiedka jaamacadka caalamku sameeyeen buu leeyahay soon ku saabsani waa 900 iminka qoladii taqdiyada iyo qoladii mediciinkuna waxay leeyihiin si mechanical ma loo tambiihin karaa systemkani inuu kaco imka daawooyinba iyagu inoo baadhbaadhayaana inta daawada lagu luqsiiyo inaad systemku automatically u kici karo laakiin waxay leeyihin soonkaa kaaga filan adigoon daawo iyo baab kale iyo waxba toona qaadanin inaad soon qaadato idan waxaan leenahay soonku guud ahaan waa akhlaaqiyaadka qofka muslimka ah buu wax taraya soonku baynu leenahay waa wax taswiya bayna almuslimiin musaawaa bil dadka oo dhammi inuu wada gaajaysanaado waa wax tilmaamaya inuu qofku dadka waxhaystaa inay dareemaan oo u naxariistaan dadka aan waxhaysan iyo nolosha ay ku nool yihiin inay si practical ay u arkaan oo ula noolaadaan soonku baynu leenahay waa akhlaaqiyaadka qofka muslimka oo dhammi wax ka bedela soonku baynu leenahay hadda wuxuu marayaa in loo arko wasaaisha tibiga ugu fiican ee ama miisaanka lagu gooyo imka waxay sameeyeen sistema 15 casho qofka la soomiyo oo ay leeyihiin inqaasul wasniga dadkan dunidu deemka waxay ka cabataa buurnida waxay dhahdeen dunida inta gaajadu hayso iyo inta buurnidu hayso hadda waxaa badan bay dhahdeen inta buurnidu hayso caalamkeenu maanta ku nool dadka cabashada baruureed ku jira ayaa waxay ka badan yihiin dadka cabashada gaajeed ku jira waa laba mishkalo oo labadaba dunida waa wada yaaliin inna dheregtaasay la dhimanaysaa inna gaaja la dhimanaysaa cadaalad darrada dunida taalla daraaddeedna soonku markaasi haddaad miisaanka dhimaysa bay leeyihin waa min axsan haddaad caafimaad doonaysa bay leeyihin kuwa ugu fiican buu ka mid yahay haddaad dhallinyaro doonaysa kuwa ugu wanaagsan buu ka mid yahay idan waxay leenahay caafimaad ahaanna waa waxbuu taraya diin ahaanna dhaqankaaga iyo akhlaaqiyaadkaaga tatiir badan buu ku samaynaya haddaynu nimaadno xajku isagu waa cibaadaadka o dhan oo la isku daro xajku markaa kow akhlaaqiyaadkii wax badan buu ka taraya oo waa tadriib camaliya waa tababar dhab ah oo qofka muslimkaa la gelinayo in shayga nadariyo lagu baro theoretical lagaaga sheekeeyo iyo inaad practical u taabata waa kala nooc tusaale ninka askariga haddaynu askari u yeedhno khudbad u jeedino oo ninaniyo dagaalku waa wax dhib badan leh waa la gaajoodaa waa la dhaawacmoodaa dhibaatooyinkaasaa dadka gaadha dee waxaa lagaa rabaa inaad adkaysato wax ma iska bedelayaa ku adkaysanaya maya laakiin waxaa la geliyaa scenario u eg scenaarkii dagaalka waxaa la geeyaa buuraa laga saaraa waa la gaajaysiiyaa waa la cadaaba waa la scenaariyahaasaa la geliyaa si maalinta ay timaado qabsato dhibta iyo dagaalku si uu u noqon karo qof ka bixi kara oo uu u samayn karo xajku waa scenario qofka muslimka ee hanti haysta la rabo inuu galo oo ah kow waxaad galaysaa nolol wax waliba ku yuu tahay cunadu waa ku yuu oo musqushu waa ku yuu oo hurdadu waa ku yuu everything xajka markaad tagto nolosha dhib waa ku yuu waxaad tegaysaa meel awalkan markaad joogto qol baad iska lahayd gaar oo carruurta la aamusiiyo oo daahiyada aad madoobaysato sanqadha aad diiddo oo la yidhaha odagiibaa hurda halkoo meel baad seexanaysaan dadka o dhan mid jarriqsanaya mid khuurinaya mid qarwaya wuxuuba ay wada jiifaan ayaad adiguna ka mid ahaanaysa halkaasaa lagaa rabaa inaad seexato bannaan weliba cidlaa oo dhagaxu feedhaa kaa gelayo dee musdelifo laydin dhigo bannaan cidlaa baa dhammaantiin wada seexanaysaa waan gogol iyo barkintoona lahayn system quraad wada gelaysaan oo wada ah
ama cunadu waa kuyu musqushu waa kuyu everything waa kuyu meeshaasi waxaad ku tadriib garaynaysaa marka akhlaaqiyaadka islaamiga lagu faro dhan walaalnimadii iithaarkii iska horumarintii sabirkii dulqaadkii waa lagu riixaya waa lagu jiiraya waa kan inta badan laakiin dadku macaanida islaamiga intay ilaabaan bay group waliba inta iska haystaan bay inaga dhiciya inaga celiya inagu ku horeyna taas ma looba tegin xajka waxaa loo tagay inaad iithaar muujiso walaalka qofka weyn inaad nusuusta iska horumariso kan jilicsan inaad taageerto kan waxaysan inaad waxaa loogu talagalay inaad nolol practical life ah islaamnimadaadaad sheeganaysay ee akhlaaqiyaadka aad rabtay oo dhan inaad practical u gasho xajku waa meesha qura ka muuqato kow iyo salaadaha iyo cibaadaadka iyo waxoo dhan bay dhahay musaawaa islaamku waxyaabuu dimaa kaga gedisay waxa weeyaan wixii cibaado ahi class ma leh inkastoo imka dadka jooga ay doonayaan inay dabaqaad ka dhigaan xataa cibaadaadka laakiin class ma leh maxaan uga jeeda salaada markaynu safka gelayno miyaynu isu kala saarnaa yaa cilmi leh iyo yaa lacag haysta iyo yaa muslimiin doora ahaan jiray maya safka waa ninkii usoo horeeyaa la yidhi garabka waxaa isku haya kii wasiirka ahaa iyo kii miskiinka ahaa kii lacagta haysta iyo kaan lacagta haysanin kii wax garanaya iyo kaan wax garanaynin kii professorka iyo kii dhammaantood dadku way siman yihin ilaahay hortiis waxaas kama shaqeeyaan ilaahay hortii waa la wada siman yihin ilaahay hortii professorna ma jiro miskiinna ma jiro maalqabeenna ma jiro waa bashar ilaahay makhluuqaad wada abuuray baa tii xajku kadalik bale waxay dhahaan xajku waliba waxyaabuu kusii caansanya waxaa ka mid a bini aadamku dharka asbaab badan buu u xidhaa dharka maxaa loo xidhaa in cawrada lagu asturto waxaa kaloo loo xidhaa in lagu xaragoodo socankaa maaha waxaa kaloo loo xidhaa caadiyaat alxayaa in la iskaga celiyo qabowga kulaylka dhaxanta dabaysha waxaa jira kolba dhar kaa celinaya inaad qaadato waxaa kaloo loo xidhaa bay dhahdaan dharka shaarada ma taqaanin astaan waa halka ay qolada psychologygu ka yidhaahdaan dharka ma inagaa xidhana bay dhahay mise isagaa ina xidhaa waligaa ma maqasha qola psychology waxay dhahdaan dadku dharka ma isagaa xidhaa mise dharkaa ina xidhaa waxaa jira tajribo caana oo professorska psychologiska mid ka mid uu sameeyey waa tajribo cilmi psychologyga caan ku ah Bristol University oo ah ardaydii jaamacadda ayaa voluntarily wixii aqbalay ayaa la qaybiyey dabeetana waxaa la yidhi qaybayna maxaabiis noqda qaybayna askari jeel noqda markaa qolana waxaa loo xidhay dharkii maxaabiista qolana waxaa loo xidhay dharkii askartii ilaalinaysay waxaa loogu talagalay 14 days inay tajribadu socoto 6 maalmood markay soconaysay baa la joojiyey waayo mushkiladii dharkaa soo baxday bay yidhaahdeen kuwii dharka maxaabiista loo xidhayna waabay burbureen oo niyad jabeen oo mashaakil qabsadeen kuwii kalena askari jeel rasmi ay noqdeen ee xidhnaa dadkana yani waxaa tusaale haddaan kale ku siiyo qofku dharka uu xidhan yahay buu imitate gareeyaa maalan sheekh xambeli hortaydu fadhiya uu xidhan yahay khamiis iyo intaa markaad xidhan tahay waxaa kaa muuqanaysa wadaadnimo soo maaha uu ka xishoonaya inuu halkaa kubada cayaara ama ororda ama socanka maaha dharkii wadaadnimadu sitaayo war wadaadku xaggu wax ku wadaa baa la odhanaya laakiin hadduu garan yaroo gacmo gaaba sita iyo surwaal yaro kuusanoo ku dhigsan hadduu sita uu iska boodboodi karaya waayo structurekiisaa muujinaya maxay waxay dhahdaan qofku marka maradu sitaa dhaqankiisay qayb ka tahay baa la yidhahdaa walidalik ayaa bini aadamku dhar isku kala sooca askarta dhar gaaraa loo xidhaa hodhaalka kuwa shaqaynaya dhar gaaraa loo xidhaa ee isku dhar gaaraa dadkan waxaa dharka loogu xidhayaa bay leeyihin professionkiisa inuu muujiyo markaa dharka kani bay leeyihin waa astaan ka mid a imka haddaad dhar askareed gashato inaad yara aad adagta xoogantumaad ismoodi doonta sida askariga oo kale aad u eg tahay dhalinyaradu markay xidhaan tuutaha waxay matalayaan yani inay dad adag yihiin oo kale haddaba waxay yidhaahdaan xajku oo meesha ilaahay ayna faray ama diinta ayna farayso in laba maro aan tolla inaynu wada xidhanno awal dharkan kale tolliimada noocu u tolayay wax kama calaamado muujinayay
calaamado inuu dharka ninka sitaa waxaad filaysaa markiiba inuu nin siyaasiyo weyn yahay ama maalqabeyn yahay ama wadaad yahay ama ka yahay dharkiisaa ku sheegayay inta aanu isagu kula hadal. ama xajka waxaa la yidhi dhammaantiin waxaa ka sinaataan laba maro oo dadku caddaanku iska doorbidaa cagaarna waa la qaadan karaa wixii la doonaya, laba maro aan dhannaba ka tollayn. macnaheedu waxa weeyaan dadku amaam allahi mid qura ahaada, nooc qura u ekaada. ilaahay hortii inaad noqotaan dad siman oo aan tabaqaad u muuqanin, oo wax xoolale ku jirin, oo wax miskiina ku jirin, oo wax waliba ku jirin, dad siman. idan cibaadaadku fi lislaam waa tatbiiq camaliyo dadka la rabo inay muslimku siman yihiin in la baro, inay siman yihiin. markaan maalintii 5 salaadood wada tukanno ee isdhex gallo ee safka dhinaca isku qabanno, keeni waxaystiyo keeni miskiinka ee ku waliba waxay keenaysaa bulshada in la isdhex geliyo. waa in laga yaabo imika inaad kiniisadaha qaarkood tagto dadku tabaqaad yihiin, dabaqada waxaysataa meel fadhiisato, dabaqada culamada matalaysaa meel fadhiisato. idan waxaan leenahay islaamku markaynu sidaa u eegno cibaadaadkiisu akhlaaqiyaadka dadkay wax ka bedelayaan. waa inuu dadku u muuqdaa amaam allahi laa xaakim walaa maxkuum walaa faqiir walaa gani walaa midnaba inaanu ahayn. wuxuu kaloo leeyahay oo ilaahay qur-aanka ku tilmaamay liyashhaduu manaafica lahu. xajku manaafic ukhrawiya mid dunawiyuu leeyahay. waa meel loogu talagalay mu'tamar caalamiya inuu ka dhaco. mu'tamar caalamiyo 2 milyan oo qof baa isugu imanaya oo xawla alcaalam ka yimid oo af walba ku hadla. marka waxaa la yidhi waxaa u imanaysaan manaafic inaa ka faa'idaan. waxay culammadu yidhaahdaan kulli almanaafic addunawiya way ku bannaan yihiin xajka. مثلا تجارة ونقول لها معرض عالمي يدك مسلمين وحي صار صار عليك وكلا قطع. لكن إنه مع الأسف وحنا كسو قضنا شايدا شاينا لقسو دريبه إنه كبر كيسنا شاينا يكتمي أما كعبة كسو يبسو أما سوق كسو يبسو وما شاينا الوسمية. لكن أصلا قوها إنه نقدم مل معروض وحي ومدى مسلم كسو صار تاي كانتو وهي كوكا لقضته كوكا لتجاريس وعمال أي ماشى سوي مادان عالم الإسلام السياسيين تي سياقويان كيس واجه واحد عشرتين عهد الصحابة مع عمر وكلايو وحو يرجع ولاة الأمور ضدك مسلمين ضدك حكومة يعني ما دحد الدولة ده هو ما يمشي مصر كايست البحرين كايست كمل الأولاد وحورنا iyaga wixii la faray meesha lagu fari jiray talo waa lagu kala qaadan jiray iyaga iyo shacabkana meesha lagu garnaqi jiray waatan madaxdii ayaa wax ka cabanaya baa la oran jiray shacabadii caalamul islaami ka yimi oo dhan naasi sheegay jireen dadku waxay ka cabanayaan idan waa meel dadka siyaasiyiinta muslimiinta ay hatta waxay ahaan jirtay fi taariikh al-islaam meel ay culimada muslimiinta aqoonta ku kala qaataan ninba fannigu ku takhasusay ama ku takhasusay marka xajka la isugu yimaado waa loo qasdiyi jiray inaad xajka sanadkan sheekh hebel kula kulantid si kitaabada lagu soo qaadataan ama xadiista uga qaadataan ama waxa uga qaadataan ay culimada waaweyn u soo qasdiyi jirtay idan waxaan leenahay waa mu'tamar caalamiya waa meel ay dadka muslimka ku muujiyaan powerkooda waa meesha qura la yidhi waxa aan shahaadani ma soo geli karaan waxaan shahaadani dadkana waxaa la yidhi waxa ku dhawaaqaysaan oo dhami waa tawxiid sloganka qura laga ogoliyay waa labayk allahumma labayk labayk la sharika laka labayk إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وسلوغان كقول لك ربو شعار كورلو تاجيو لا ربطت كورنا من يكون وقرنا إليها دومي هي وحلو الشركية اللي أنا شريك ومال حتى عدتك السياحة هذا سافرت أنا دوت أنا حتى هذا قلم كي شكسبير بانصار كي كرسي وفيكتوريا كفري سنجرتي boqor hebel halkuu tegi jiray soo waxa soo hartaan dalcad baysan meel ama pyramidiska xabaalihii fircoon pyramidisku waa ummada dhan oo loo halaagay inay boqorku markuu dhinto xabaashiisa ay dhisaan pyramidkan dhan aan arkaysaa waa xabaalo mana xabaalihii faraacinada kuwii rabbiga sheeganaya xabaalahoodii weeyaan meesha tani waa meel loo qastiyo kow waa dhulkay mareen dadkii khayrka qabay النبي عليه الصلاة والسلام حديث مسلم قرآن وحط المامية إنه أركا يا يونس بن مطا ونيف كيلا وطا وحط المامية إنه موسى أركا يا نبي موسى والوادي كان وقوما وهرشا يوازرقي وادي دي وشيء موسى هل كان كتر لابيو وله جوار له إلهي لبيك تيسكون واقع بل مسجد خيف بن نبي قلت المامية تدبات النبا مري
ma rabtaa markaa meel 7 nebi mareen inaad soo aragtid ma rabtaa meeshay ku taallo gurigii koowaad ee dunida laga dhiso ee cibaadaba loo dhiso in awwalu baytin wadica linnaasi laladii bibakka guri cibaadaba loo dhiso ilaahay lagu caabudo kacbadan arkaysaan dee waa qol yar dadku dhagax weyn oo madow bay moodaan marada masaariya waxaa markaad ka tuurto waa qol dhisan xajarul aswad kora koona yar buu kaga jiraa qolka kani waa qolkii koowaad ee loo dhiso maxay cibaada awalu beyt arabta meelihii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu maray cumar maray saxaabadii waaweyda maray wixii taariikh muslimiintu ay lahaayeen meel ay wada mareen ay soo arkeen marabta meelihii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu diinta ku faafiyey uu halgamay idan xataa haddaad siyaaxa ka fakarayso caqliga siyaaxada sheegaya xataa haddaad ka fakarayso waa meel loo siyaaxa tago dadka muslimiinta ahi ee u safar tagaa idan waxay leenahay cibaadaadka islaamiga ahi عموما عبادة دن إلهي درتي بين نصبينا حانا نصبينا أصل كوحويان إنه ندم الدافية جنة كهلا هذا هو الأصل دم الدافية جنة إنه كهلا أصل كوحويان إنه إلهي عقابتي سيا عردي سيا عذاب كيسا كما حصلنا لكن وحلنا ومع ذلك وحاصلنا يضاله أي وحي لين عباداتكو هدي الله سمايو سيدي شرعي والشيغي hadday noqoto qaar loo fuliyo kow akhlaaqiyaadkii iyo nafsiyaadkeenna waxbay ka bedelayaan oo tahdiib iyo tathiir iyo tasxiix linufuus nafta qashinkeeda oo dhan bay daahir yeelaysaa nadaafa qalbiya baad samaynaysaa nadaafa akhlaaqiya baad samaynaysaa waxaan leeyahay cibaadaadku sidii loogu talagalay haddii loo sameeyo waa shicaaru lwaxda midnimada muslimiinta iyo sinaantooday tilmaamaysaa hadday tahay salaad iyo soon bil quray wada soomayaan waqti quray wada afurayaan waqti quray wada gaajaysanayaan meel quray ku wada tukanayaan meel quray wada xaj tegayaan kuwada waxaystaa ka miskiinka ah sadaqa iyo zakawaad siinaya idan waxay leenahay waa wax tilmaama cibaadaadka gudashadooda ilaa xad wahdada iyo umadnimadu la tilmaamayo cibaadada jamaacaadka lagu qabtaa inta badan inay ka fadli badan tahay cibaadada lagu sameeya maxay fardiga maalan salaada dad gurigaa ku tukatay haddaad ku tukato maxaa u dhexeeya ajar weyn baa la yidhi 25 ama 27 aad xagga ku tukatay iyo mid aad xagga ku tukatay baa maxay isku ajar ah laakiin marka xagga waxa la akhrinayo waxaa laga eego ma wax ka badan maad akhridaa intii unbaad tidhaahdaa daanay kaba yaraanin oo aanad ibaam dhegaysanin intii unad xagga ku akhrinayso maad halka ku akhrinaysaa maxaa soo kordhay waxaa soo kordhay walaalkaabaad garabka ku qabatay qura soo kordhay waxa weeyaan walaaladabaad si dhinac taagto garabka ku qabatay waxaa soo kordhay islaamnimadaadaad muujishay shacairta islaamigaad kor u qaaday walaalnimada muslimiinta aad dhexmay idan tanbaa maqsada inaad walaalnimada islaamiga muujisid inaad shacairta islaamiga muujisid inaad diintaada muujisid baa ah maqsad loogu talagalay idan waxay leenahay waa shaciira adduunka markaynu sidaa u joogno qiimo samaynaysa أيها الأحبة حلاني مركا دينتو هدي أي تمتميو وحلا أخريو حركات سكر موطنا قيمة الدونو بدنا يالن ميسو بدا أخرو بدنا يالن ميسو waxay qiimaha leedahay marka ay wadato macaanideedii ilaahay ugu talagalay inay yeelato haddii aan sideeda loo gudana qiimo yeelan mayso casrigadnaba waxaad arkaysaa qof tukanayo dhabarku muuqdo bale sawada lafteedu mid ay muuqato aad arkaysaa tukanaya waayo mashaakilka cusub ee dunida soo baxay berigii hore dadku xor buu ahaa bini aadamka maanta jooga inta xorriyaddii laga qaadaa la yidhi xor baa tahay waa loo sheegay inuu xor yahay xor waxaad u toon akhlaaq xumada ama xorriyaad kaloo dhan waa la iska qaaday walidaalika baa ilaa xad waxay gaadhay maalan maradu waagii hore qofku isagaa tolan jiray siduu doonana u tolan jiray iminka qola inoo fikirto inoo tasho oo sanadba model inoo soo saarta waxaad ku qasbantay modelka suuqa yaallo inaad wax ka soo iibsato dabeetana modeladiiba waxay noqdeen hadda kuwa dabada hoostooda laga guntado aan koru xidhmin haddaad tidhahdo surar kor u qaadqaadma maayo dee halkaas mu joogaya
dee laba midun waa inaad yeeshaa haddaad kaa ku tukato waa qasab inay dabada ku muuqato laba midun waa inaad yeeshaa ama garan lowga jooga waa inaad u iibsataa si aad cawradaad u asturnaata ama waa inaad xidhanin de haddii kale salaadi kaa sixi mayso marka waxaan uga dan leeyahay cibaadaadku qiimo beelkay sii qiimo beelaya waxay gaadhay xad intuu qofku cawrada muujiyo inuu yidhaha waa tukanaya salaadaa saxaysa markaa yani wax kalaba ka kaalaye adoo cawradu ku qaabantay markaad tukato haddana tiraahda waan tukaday waxay tilmaamaysaa xadka aynu wax walba fudaydsanay sida aynu wax walba u qiimo tirray salaadii aynu rabnay inaynu ilaahay la hortagno aakhiriya adduunba waxayna tarto hadday noqoto salaad aan jirinba aad iska foorfooransatay dee raad adduuniya mid aakhira toona yeelan maysa marka waxaan uga dan leeyahay cibaadaadku hadday noqdaan kuwii ilaahayna faray soontii layna faray salaadii layna faray zakadii layna faray xajkii layna faray hadday yihiin tawxiidkii layna faray tawxiidka isaga gaar baan uga warramay wixii layna faray hadday yihiinna midho adduun bay leeyihiin oo aynu adduunka intaynu joogno dhadhaminayno maanta maxaa muslimiinta colaadan badan ugu wacan iyo waxay leenahay cibaadaadka khalkhalay waa ka mid cibaadaad kuwii ahaan lahaayeen maynan isxaqirnayn maynan isdileen maynan colaatanin maynan laakiin markay cibaadaadkeenu daciifeen ayay noqon waayeen kuwo wixii la rabay soo saara midhihii la rabay uu ka dhasho hadday adduunka dhali waayeen wixii la doonayeyna shaki weyn ma ka qaba aakhirana inay waxba dhali weydo waayo shaygu haddaad halkan ku tijaabiso aad halkan waxba kaga weydo xagga dambe wax ma kaga helaysaa ilaahay waa naxariis badan waa kugu sii karaa oo min raxmatihi laakiin lam nastaxiq maynan mudan marka loo eego acmaasheeda marka darsigaygu wuxuu ku saabsiisan yahay markaan soo koobo diintu aakhiro qura ka sugi mayna raje waa inay acmaasheedu noqotaan kuwa adduunka manfac ku leh oo manfaceeda aynu ku goosannaa intaynu dunida joogno kadib baynu rajaynaynaa markaa inaynu manaaficdeeda aakhirana heli doono in sha allahu tacaala sala allahu calaa muxamedin wala alihi wasaxbihi wasalam walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin